deegaanadii Puntland oo dagaal qabiileed ka bilowday Siciid Hulumbe wixii uu raadinayay eel saddexda sano laga hortaagnaa wuxuu yiri ka hari weyday waa ku haysataa Puntland dagaal qabiil oo aan waxba la isula harin jidgooyo qafaal iyo aana qabiil buu Siciid Hulumbe ka bilaabay wuxuu yiri imisaan ka daanidhi imisaas loo digay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توعان ونكسل وحان رباينا استول تاغو حالة Puntland deegaanadii Puntland iyo maamulkii Puntland xaalkii sumaanta halka uu marayo deegaanadii Puntland waxa ka bilowday dagaal qabiileed uu hogaaminayo dagaal ooge Siciid Hulumbe oo ka bilowday Puntland waxaad ogaaday shalay magaalada Boosaaso banaankeeda tuulada Laag ciidan BSF oo maraya in isbaaro loo dhigtay in halka dagaal ka dhacay waxa laaliyo wixii ciidan Puntland joogay kii Garowe joogay iyo kii Gaalkacyo joogay iyo kii Boosaaso joogay dhammaantood ciidamadii xitaa furimaha ku jiray intii haraaga ahayd ee furimaha ku hadhay ee la rabay dabka in lagu shubo wax ciidan sheegta Puntland oo dhan wuxuu isugu keenay Laag lix gaari oo ciidamada BSF wateen oo wadada marayay ayaa jidka loo galay markii halka xabadi ka bilaabatayna afarta koona la geeyay Siciid Hulumbe isagoo tookhaya oo faan ka dhiganaya dadkaygii iyo ciidankaygii iyo shicibkii Puntland balaay oo Xasan Sheikh iska gadaya uu soo fariistay waa kelmadii waa copy and paste kelmadii waxa weeye ciro ولها موسى جودان وحين ييرو وموسى بيحكوا لها كلمات دي بولا صفرت سعيد هلومبي وحين حسن وحين ييرو لح قاري وواحد الله دقالمي كنتن قاري وح الله لي وحي عيدا Puntland جوغي شالي لايك بالسويم قوارد الله صوبا ديغيو إلا لا يبي صفا لا يغبطي إلهي بان دي كل شيء غير Puntland عيدا بدا بي صفي قواردو دا ما وحبا لقى بدلي وحبا اسبدلي gawaaridan cadcad arkaysan ee dhowr iyo 10 gaari ah ee Siciid Hulumbe soo bandhigayo horta waa gawaaridii imaaraadku siiyay Siciid Hulumbe gawaaridan liidka wada leh horta ciidamada BSF male wax gawaari ah oo dhowr iyo 10 gaari ah oo BSF laga qabsadayna ma jirto gawaarida xitaa meesha mariyay markii hore 6 gaari bay ahayd halka waxa ka dhacay ceeb iyo fadeexad iyo shacab la qaxiyo iyo dad masaakiin oo wax allaaliyo waxay galabsadaan aanay jirin beerahoodii iyo dhulkoodii waxa weeye laga barakiciyay hadaba maxay dhashay ciidankii BSF jidka loo galay maxay dhashay waxay dhashay dagaal beeleed dagaal qabiil magaalada Qardho xalay hotel ku yaala oo Siciid Hulumbe jifidiisu leedahay bahadul bahanta leeyihiin ayaa weerar lagu qaaday bumba lagu tuuray nin baa ku dhintay suwaaqroona ساعدنا نلها الليو لبا قاري أو سعيد هلومبي المادرتي ليهين بحر البهانتا لبا نينو بحر البهانتا قواري إليهين أيها الله قفاشي يجي كوي سارانا يغور نول بالك حيستي مقالة دي قرنو واكال حرانتهاي قبل كهدو دعي هدو واقو بريو قفو اللي بيسوغا هرينها إيغيا أيو ودادا قوينيا قرنو وحي أبدالي سعيد هلومبي برمودو بدلي يعني كوبي سجاشن كي إن مقدسة شوكتا وحنا هين إن عيل جاب تمرسيد أو كوبي سجاشن كي تاي وحنا هين قرنو ما أنت حافظ طبك كقادر يساهم مشتو واحد تقال بيا واتشفيد يسي بعد البهانتو الله وقار سنة يوم سببتها سعيد هلومبه بمركان ليه هو الدجال أوجي وهو جامية كوحد عيدا كي مامل Puntland سيدا يقدم ماين بوليس ده برمد ده مدحتوير ده قلايد ده قرقر ده وح الله عليه وحي عيدما خاصة حتى يسووا سمستي دمانتود وحا ومدح وقدق او تليه وضعه عيالكو اذيرده وها يويلاشيسي يتفيديسي بحر البهانتي انو بحر البهانتي ودا تولكيا colaad uma qabo laba nin oo siman baarnaaniyo Siciid Hulumbe isla waa bahar dhulbaante ana reer Salax Maxamed baan hay bahar dhulbaante colaad iyo nacayb gaar ah u qabaahay ma jirto balse waxa loo magacaabaya waxa meesha ku jira ee ciidanka wata iyo kan hogaamiye kooxeedka ee dagaal oogaha waa Siciid Hulumbe intuu waa bahar dhulbaante tusaale yar baan siinaya in likani
dagaal ooga yahay oo kaab qabiil yahay baan rabaa wax yar dadka u haysta inuu madaxweyne Puntland yahay wax yar baan rabaa inaan istul taago oo idihooga tusaaleeyo Puntland waxay leedahay ilaa 9 ciidan oo 4 ka mid ah isagu gacantiisa ku samaystay waxaan rabaa marka wax yar inaan idin tuso ciidanka Puntland cidda horjoogaha ka ah ciidanka BNPF la yiraahdo waxa haysta nin la yiraahdo Cabdirabbi Maxamed Nuur Geesood waa in adeerkii bahadul bahanta marka laga yimaado reer Geesood bay isla yihiin waa ciidanka maanta waa ciidanka shalay la ka dagaalamay ee ninka warsagaliye ciidla la yiraahdo dusha laga saaray mid warsagaliye Dubaysa inuu Dubaysa aanu malaynayo baa waxa ay ciidanka ninkaas watay aanadii iyo dhibaatadii ninkii warsangali ee ciidle oo ciidan yar wata oo Dubayso laag jooga oo sanaag laga keeno nimankii bahoogas laba iyo Maxamedkii islaynay xitaa yiri ma dhaxgali kartid oo sanaag kama hadli karto waxba kama qaban kartid ee laag la keenay ayaa dambigii dhakada laga saaraya social media waxa la wareegay ciidle cabsi wiilka warsangali ciidla sameeyay waxba kama jiraan ciidle nin allow sahala oo wixii farta loogu fiiqo waxa weeye gal meesha yaada galaya oo amar iyo nahyi toonna aan lahayn way laakiin la rabo in hilib ceerin dhakada laga saaro si aanada hadhow Dubays loogu raaco ciidanka BNPF ta Cabdirabbi Maxamed Nuur Geesood bariyada waa in adeerkii laxmiya waxaan tusayaa inuu kaab qabiil yahay oo hogaamiye kooxeed yahay oo waxa maanta qardho xaafuun dagaal baa ka dhacay xalay dabka la isa saaray magaalo kasta oo maanta Puntland ku taalay maamulka Puntland magaalo kasta iyo tuulo kasta ka tirsan reer waliba qoryahoodii bay safaysanayaan sababtoo kaab qabiil ninkii maamulka madaxweynaha ahaa kaab qabiil isu bedel waxa rabaa ciidanka birmadka waxa haysta nin qoolaali la yiraahdo oo in adeerkiyo bahadul baanta balanta xisaabta ay qabta BNPF waxa haysta Cabdirabbi iyo in adeerkiisa birmadka waxa haysta qoolaali iyo in adeerkiisa waa ciidankii Puntland waa birmadkii iyo BNPF laba ma haysan waaye taliyaha ururka galeyd waa ciidan cusub oo Saciid Huluunba samaystay waxa taliye ka ah nin bahadul baanta oo magaciisa la yiraahdo Cadoodi baa leeyahay waa bahadul baante waa ciidanka khaaska ah waxa weeye Saciid Huluunba samaystay galeyd baa leeyahay ururka galeyd baa leeyahay nin bahadul baanta ah hayo Cadoodi la yiraahdo ciidanka afraad ciidanka RRU-da nin bahadul baanta ah haysta oo magaciisa la yiraahdo Jaamac Rabax waa bahadul baante RRU-da ciidanka RRU-da ninka haysta waa bahadul baante Jaamac Rabax baa leeyahay waa in adeerkii waa Saciid Huluunba in adeerkii ciidanka shanaad ciidanka madaxtooyada waa ciidanka shanaad Saciid Nuur Shire nin la yiraahdo baa haysta waa ciidanka dhan ee madaxtooyada waa bahadul baante waa in adeerkii shan ciidan halka may u haysan iyo shan nin oo Saciid Huluunba in maadeertiisu bahadul baanta oo qaarkood reer Geesood yihiin ciidanka lixaad ciidanka bisa la yiraahdo ciidanka Maxamed Quulle nin yiraahdo baa haysta waa bahadul baanta isaguna Saciid Huluunba gacantiisa ku samaystay waa ciidamada khaaska ah galeyd iyo bisa iyo ciidanka madaxtooyada waa khaas todoba taliyaha howlgelinta daraawiishta ina degadla liyaada dictoro la qaybiyay qaybta koobaad koow ma yaqaan hoobjac ma yaqaan ina degadle waana taliyaha guud ee howlgelinta ciidamada daraawiishta Puntland waa bahadul baante waa in adeerkii sideed taliyaha guud ee ciidamada Puntland oo dhan birmadde boolisde RRU-de Jini Jande daraawiishde galeyd qarxisde isku soo wada duub nin baa dhakada ka haysta la yiraahdo in cabaade sameyna cabaade xitaa odagan Cumar Maxamuud ee maaragtay maqaarsaar odagan maaragtay Cumar Maxamuud ee haraga waa maqaarsaar sameyna cabaade oo macnaha agaasime ku xigeenka madaxtooyada Puntland saddex xil buu isku haystaa saddex waa taliyaha guud ciidamada Puntland oo dhan ciidamada Puntland marka lagu leeyahay birmad baa ku jira asluubta ku jirta booliska ku jira daraawiishta ku jirta BNPF ku jira RRU ku jirta wax isku soo wada duub isaga taliye ka ah waa ahna macna
agaasime ku-xigeenka madaxtooyada Puntland sawayna cabaadaliyada ninkaas alxamdulillah wa roodi ku dubi jiray roodi waagii ugu dambeysay alxamdulillah meel la yiraahdo buu roodida ku dubi jiray baqaaxi buu ka shaqayn jiray roodidu dubi jiray forno meel ciidan waligii ma tagin xeer ciidan isma taagin tababar ma yaqaan waxna ma qoro waxna ma akhriyo sawayna cabaad ma qof reer Puntland yaana orey reer bariya qof reer bariyo garan ma jira sawayna cabaade alxamdulillah maqaaxidii roodida furin luha furin لا يقرأ ولا يكتب هذا لو تريها جود عيدا ماذا بوتلان هي أجاسمك حجينك مدحتويدا سداد ما يحسن وحى بحصدي وكبد بعد عيدا ماذا بي أسفت ونمان المديانة اللي يهدو وكايدو سعبيو الله من حيث تحتا اسمان ديانا الله يرحمه وحوي هوشن أول كأها ورجي صوب بلاوي وكمدها بي أسفت السمر كان لوجا قاضو أيها هرت واحد صوّره أو تجار أو بأيوه ودعيا واحد وجدين بوصاصات كورنتو ساسو كلفوت الدري وسيري ماشي كقاد مركي لقعت كادي انتو دتكي لا يسوي استاغو يحيدي رير بوتلاند دبي دباتد ودا gaadhe daanta wixii jira dad ha qaado ninkii uu la dagaalamay ee Cismaan Diyaana darajadiisu uu darajo ugu sii kordhiyay maanta ciidankii Puntland oo intuu ururiyay oo lix gaari meel ka helay oo lixdii gaari iyo konton tignika islaayeen oo dadkii la qaxiyay oo magaalada Boosaaso deeqa xiran tahay baladeegi oo saddex isbuuc ka horeeyay dekadii albaabada u laabay maantana kantaroolkii xilay buu leeyahay xasan oo xiniyo waxay dhashay qardo inaan maanta dabka la iska qaadan waxay dhashay in xaafuun xabadi ka socoto waxay dhashay in la is ugaarsado waxay dhashay maanta jifidii ina Cismaan Diyaane Bahdir iyo Bahdul baanta inay isku baacsanayso magaaladii qardo oo laamiga la iskala degayo oo qof kasto Bahdul baanta waxa weeye hotel ku yaala qardo miina lagu tuuro xalay bumba lagu tuuro haddana laba gaari iyo dadkii sarraaba laga faashay Puntland waxa ka bilowday dagaal qabiileed sababna xoo ah Siciid Hulumbe oo aqli iyo garasho iyo damiir iyo dadnimo midna aan lahayn oo doqon waa doqon سعيد هلومبي سياسة ورك شخصيا عاديا نكن سديتير سواء مسكعدي سفريسطي المها هي سديتير كا بعدامه عقلي يقرشي يدمير يتضمد منه طول مالي وانيقو كو فكري ميل دن امدي دغنت هاي قفكو حاس الشيخ بابيني ما يحكي شيء حاس الشيخ با دلكي عري عرورتي سو قيبي الا قفان عقل لهين الا قفان دمير لهين الا قفان تضمد لهين الا قفان دين لهين waxaad wuxuu yiri imisa ka daanidi imisa loo digay waxaan lahay warkada war dadku waa ku arkaan war dadku xoolo maaha war dadku may maanta aad midhaheedii haysaa waxaan u sheegayaa reer Puntland iyo dadka Puntland degan horta wax maamul Puntland liyaado oo jira ma jiro maamul Puntland waa burburay maamulkii Puntland iyo nidaamkii ma soo dhawaan مالك سعيد هلوم بقبصة بحيري وإسلامتي إن دلال بكو قد هذا تقلمي كو درستي مالك سعيد هلوم بقعنته كل جاي بيرتب بطلع إسكبر راعي ما أنت وح مامله لسنة مشلو هو جامي كوحد كاب قبيل وسدات عيدا سمايستي ودوني يقفل بينه عبوريو أيام ماشي تشوغر هير وليبا يديجان وليبا هي مجالك استعملي جيدا يديجان كده شيء وتصلحي فلان كده الله قلو حتى نين أتكيس لماها وحير حتى نين دول قاعدة كرمها وحاسة ومدن المدحوين اللوجة دقي أو مام اللول ديبي أو وحوي تدخل دوفيليا أو عقل اللي جسوجي أو جرش اللي جسوجي ما أنت دجال القبيلات باوحو كسعلا بوتلاند دجال القبيل باكبل وضي غير ولي بقولي جودي سفيسانيان هو جامي كوحيد كاب قبيل عيد وطنينيو والله بالله تالله يبان وجرين وسم ملايين مايو المعسمان دياني بهدرنا صور دافيشين لكن واحد سببتي أو سبب يسا إن دتك رير بوتلان قبيل ولي بد وحوي تولده ودي تجان كودي إسبارل دكتوبات سبب يسا وحنا لك بقى قدرية ملايين مايو إنه هرينه وحجرتك يو سمدا يو عقاشي هدي أي وحكا هرين سجوا مجورا كل وصول كجا جلب اليري دتك وناكسنا دتك أي دلين هدي عقل كواري إيجي سيدك دجال سوي مادو
oo Puntland hal la badbaadiyo oo deegaanka Puntland maamulkii Puntland waa dumay deegaanka iyo dadku yaanu inaga dumine eegay si degdeg ah la isugu yimaado wax maamul yiraahdo iyo wax ka jira maanta Puntland ma jirto hogaamiye kooxeed baa haysta kaab qabiil baa haysta iimaan laa waa haysta nin cuqdad qaba oo xanuunsan meeshaad aragtid boo qof baa dhul baantaa ba taagin ma ciidanka kaliya boodin maaliyad ha noqoto meel kasta oo dakhli ka soo galo wardakada laba walaalihiisa haysta eelaboorka wiilkiisa baa haysta korontadii wiilkiisa baa haysta cisbitaaladii qarno gabadhiisa baa la wareegtay cisbitaalkii walaay qarna mee gabadhu dhalay baa qaadatay uu hadiyad u siiyay hadiyad dhalashadaada ku siinaya buu ciidankii Puntlandna meel walba nin baa dhul baanta oo roodhile oo furunka iibiya baa taagan Puntland xaaladeedu waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay maamul ma jiro dawladii ma jirto nidaam ma jiro hogaamiye kooxeed Muuse Suudiye la xoog iyo waxa weeye wax yaani koob iyo sagaashankii bay Puntland ku noqotay caawana laamiga meel kasta isbaara taala reer waliba qorigoodu u qaatay qofku aana ku lahaabo maanta waxa weeye gaadgaaday مثلا Puntland baa la soo weeraray Xasan baa la soo weeraray Xasan baa halka taagan Xasan nooma imanay musiibo Xasan ka xun oo ka doqonsan oo ka caqli xun baa yimid laakiin wuxuu yiri wadkeed korsatay waqwaqi makaayir maanta ay ku haysataa soo maanta reerkaaga iyo jifidaadii dakare meel walba qof baa dhul baata meeshii lagu arka baa qof baa dul taagan maxay geysteen dadka masaakiinta ay gawaarida watay iska soconayay ee la qafaashay Puntland badbaadiyo baanta odayaasha iyo ismada iyo waxgaradka deegaanka la hadlaya Puntland badbaadiyo u baahan tahay maamul ma jiro maamul waa dumay Puntland waxay u baahan tahay dadka reer Puntland iyo deegaanka in la badbaadiyo barnaamijka duu soo gaarsiin shirkaday khayr iyo baraka diirsan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.